waa muuqaal argagax badan kaas oo lagu faafiyey baraha bulshada gaar ahaan Facebook, YouTube iyo TikTok. Muuqaalka aan ka hadlayo waa gabadha yar ee lagu magacaabo Nafiisa Cumar oo maanta midkeeda laga helay guriga ay ka deganayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Nafiisa qoyskeeda ayaa raadinayay labadii maalmood ee ugu dambeeyay iyagoo sawiradeeda ku faafiyey baraha bulshada. balse qoyska Nafiisa oo naawilayay inay marun heli doonaan gabadhoodii ayaa taa beddelkeeda waxay midkeedii ka heleen xaafadda ay deganayeen iyadoo weliba midkeeda lagu riday digsida cuntada lagu kariyo. dhacdadan ayaa argagax badan ku abuurtay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan muuqaalka like saar oo share garee saaxiibada si aan u helno saaxiibo adiga oo kale ah. daawade aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan muuqaalka like saar oo share garee saaxiibada si aan u helno saaxiibo adiga oo kale. aad baad mahadsan tahay.